wanaagsan daawadayaal halkaani waa Shiba TV kusoo dhawaada war wixii gudaha daafaha caalamka naga soo gaaray warku waxa la socodsiinaa aniga Igraan Shire qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aqalka madaxtooyada ku soo dhaweeyay xulka qaranka ee 17 jirada Ra'iisul Wasaare Xamsi Yawdi hogaaminaya oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga xulka qaranka ee 17 jirada oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ballanqaad cusub u sameeyay daayirta xulka qaranka ee 17 jirada wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda amniga hay'adaha maareynta musiibooyinka qaranka oo shir ka furtay Muqdisho madaxweyne Dani oo ballanqaad u sameeyay ciyaartoyda xulka qaranka ee 17 jirada akhbaraadka dibadda ee warkeena ay ugu haynana waxaa kamid ah Ruushka oo duqeymo cusub ku geystay caasimadda Ukraine dowladda Turkiga iyo Greega oo isku eedeeyay tacadi loo geystay dad tahriibayaal ah intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena aad ku daawan doontaan iminkana u diyaar garooba iyagii oo faahfaahsan soonada wanaagsan daawadayaal qodobka ugu horeeya ee warkeena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa aqalka madaxtooyada ku soo dhaweeyay xulka qaranka ee 17 jirada wariyaha Asma Maxamed ayaa idin faahfaahinaysa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku soo dhaweeyay xulkeena daayirta 17 jirada oo maanta dalka keenay koobkiisa kaafa oo ay ku guuleysteen sanadan 2022 madaxweynaha ayaa xulka qaranka iyo tababaraha ugu mahadnaqay dadaalkii ay geliyeen iyo sidii ay Soomaaliya ugu soo hayeen guushan taariikhiga ah isaga oo ku tilmaamay geesiyaal kor u qaaday sharafta iyo qarannimada Soomaaliya dadaalan ku jirnay halgan lagu jiray ayaduna halgankii ka mid tahay Soomaaliya inay xurumdo inay magac dheer yeelato inay meesha ay xaq u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto shaqada dhalinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaq ugu lahayd waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhalinyaradan madaxdii hogaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyay ee maanta meesha aan taagannahay hawshaa soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyay maanta inteena waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan waxa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyay dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maraga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso dhalinyaradan meel ay soo keeneen dhalinyaradan meelay keeneen tartankii dadka Soomaalida dhexdeeda ka dhaxay inta kor u qaadeen
ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale. waxaan u baahannahay waa intaas dhexdeenna tartamada yaryarkaa xafiiltanka ay yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka. qaaradaan joognaa berrina inaan caalamka gaano. dhallinyaradan waa da'yar yihiin maanta. adigu waxaan rabaa dadkeenna maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayno, waa noola qaar ayaga ka mid a ilaahay idankiis oo magaca soomaaliya iyo calankaas buluugga ah haddana maalin maalmaha ka mida koobka adduunka ayagoo u tartamaya geeyey in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay. lianna hadda juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shakhsiya iyo dadaal shakhsiyaad iyo dadaal dowladdooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyey. berri ilaahay idankiis markay dowladdooduna soo tabaraysato adduunyada soomaaliyana ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato. ra-iisul wasaare xamse iyo wafdi hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Gradwell Wale ee magaalada Jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cumar, mas'uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka iyo dadweynaha aad u fara badan. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa soo dhaweynta kadib si wadajir ah warbaahinta ula hadlay. garoonka Wilwal iyo magaalada Jigjiga iyo deegaanka Soomaalida aan ku soo dhaweyno wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Itoobiya go'aansadayna inuu ay muhiim tahay mar haddii uu Itoobiya yimid in deegaankii Soomaalida oo si gaar ah aynu maaragtay wax soo siinahay inuu yimaado go'aansaday. aadna ugu mahadsan go'aankaas inaan ku soo dhaweyno magaalada Jigjiga. ra-iisul wasaare soo dhawow adiga iyo wafdiga kula socda intiinaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. waxaan rajeynaynaa inta aad joogtaan inaad maaragtay wax badan ka fahmi doontaan xaaladda nololeed ee deegaanka iyo dalka Itoobiya guud ahaan. iskaashigii inoo bilowday dhanka la dagaalanka argagixisada inaan sii xoojinno kuna darno isdhexgal bulsho iyo mid dhaqaale inagoo oo ka faa'iidaysanayna barnaamijkan guud ee regional integrationka loogu talagalay in bulshooyinkan dib u dhacay ee dalalkan jaarka geeska Afrika ay ka faa'iidaystaan. markaa soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. waa deegaankii adiga iyo waftiga kula socda waa deegaankiinii. waxaan rajayn doonaa maaragtay in wada hadallo dheeraada iyo isdhexgal ka ballaaran kan aad la yeelan doonto annaga iyo qaybaha kale ee bulshada si aan u sii xoojinno walaalnimada labada dal iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo dalka aan jaarka nahay ee Soomaaliya. waad mahadsantahay. soo dhawow. madaxweyne waan ku mahadcelinaynaa runtii soo dhaweynta adiga iyo xukuumadda iyo shacabka reer Jigjiga. runtii waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha badan ee aad noo samayseen. annana waan ku faraxsannahay runtii inaan idin imaadno. sidaad sheegtay waxaa naga dhexeeya runtii cilaaqaad aad iyo aad u wanaagsan innaga Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya guud ahaan, gaar ahaanna deegaanka Soomaalida oo aan xuduud dheer runtii Soomaaliya ay leeyihiin. waa ku faraxsannahay inaan isu imaano. insha Allah waxaan xoojin doonaa aan ka wada hadli doonaa danaha waaweyn ee naga dhexeeya oo ay kow ka tahay la dagaalanka kooxaha dhibka badan oo runtii Soomaaliyana ragaadiyey. idinkana aad nala aragteen runtii dhibkaada waa ay dhaweyd. waxaan rajaynaynaa insha Allah annagu aan dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa. waxaan rajaynaynaa in aan iska kaashan doono haddii la yiraahdo dagaalkaas. sidii inta kalena insha Allah waxaan sii xoojin doonaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha ah isu socodkooda insha Allah in la sahlo. waan runtii mar kale waan idinka mahad celinaynaa. waan arkaynaa insha Allah dadka iyo dowladdaba haddii la yiraahdo. waxaan rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan
iyo booqashadan aniga iyo wafdigaygu runtii Soomaaliyana iyo deegaankaba iyo guud ahaan regionkana ay wax fiican ku soo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran marka aad iyo aad madaxweyne u mahadsan tahay runtii waan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta mar kale shacabka iyo dawladana waan mahadcelinayaa aad baad mahadsantihiin xulka qaranka ee 17 jirada ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho wariyaheena Maxamed Ibrahim ayaa idin faahfaahinaya xulka qarankeena ee da'yarta 17 sano jirada ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho kadib guushii ay dhawaani ka gaareen koobka Sekafa ee bariga bartamaha Afrika ciyaartoyda oo sida koobka ay ku guuleysteen ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xulka uu hogaaminayay wasiirka ciyaaraha ee dhalinyarada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale ku soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde runtii waa wax ku cusub sida dareemaysaan farxadda shacabka garoonka ku soo dhaweynaya xataa waxa la xakameyn waayay shacabkii la xakameyn waayay farxadda markaas shacabka waa la xakameyn waayay runtii waad u jeedaa waxa ka keenana waa farxad qaar ayaa waxa waa farxad la ilmeeyay runtii anaga wax weyn nooga dhigan tahay markii national team ama koox qaran ay guusha waxa weeyaan keento waliba ay ka soo dhaxbaxdo kana badiso dawlado marka 30 sano ama 30 sano annaga marna dawlad la'aan aan ahayn marna dib u dhis dawladnimo aan ku jirnay inaan ka soo dhaxbaxno oo maanta aan ka qayb galayno koobka qaramada Afrika wax weyn bay inooga dhigan tahay safiiradii aan dirnay uu hogaaminayay hogaamiyaha daacadda ah muqliska ah kartida leh howlkarka ah wadaniyada ku dheehan ee qaranka waxa weeyaan iyo shacabkaba waxa weeyaan u cadaalad faray macallin nuur aamin runtii waa uu ka farxiyay shacabka dhammaan kooxda ayadoo aan kala reeb lahaynna waa u mahadcelinaynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana kooxadan wuxuu ugu talagalay maadaama gul qaran ay soo hooyeen taariikhdana baaldaab ay ka galeen inuu dhiirigelin weyn ka duwan dhiirigelinadii hore loo sameeyo hadarna waad u jeedaanba waxa weeye shacabkii iyo kooxdii waxa weeye farxad daraadeed ayaa loo kala saari laayahay marka waxaan idin rajaynayaa inaad meel walba dunida waxa weeyaan gaarsiisaan Soomaaliya maanta waxa weeyaan sidii hore si ka duwan ayay taariikhda waxa weeyaan kaga gashay aad iyo aad u mahadsantiin walaal koobkii bariga bartamaha Afrika ee Sekafa ummadda Soomaaliya dhamaanteed oo hamaleynayna waan isu hamaleynayna wax fiican waa boqolkiiba boqol siraajada waa inaan hore u soconaa oo aan koobka aan bariga waxaan ka qayb galaynaa tartanka Youth Cup oo ka dhacay Algeria 2023 hadii la yiraahdo kaasna inaan ku guuleysan rabnaa ciyaaryahan Cabdixafiid oo ah laacibkii qaatay koobka ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka intii uu socday ayaa ka hadlay dareenkiisa isaga oo saaran baska u sidii xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ciyaartoyda Soomaaliya ayaa 3-1 ugu badiyay xulka Suudaan ciyaartii kama dambaysta ahayd taas oo ka dhacday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ballanqaad cusub u sameeyay da'yarta xulka qaranka ee 17 jirada wariyeena Cabdifataax Durdur ayaa idinka waramaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa cash sharaf u sameeyay ciyaartoyda kooxda xulka qaranka ee 17 jirada oo ku guuleystay koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee Sekafa Ra'iisul Wasaaraha oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa ku celiyay mar kale in ballanqaadkii ay u sameysay dawladda ciyaartoyda ee 17 jirada ay dhanka dawladda diyaar ka tahay misna waxa uu u sameeyay ballanqaad kale oo cusub waa soo hambalyeynayna dhamaanteed waxaan leenahay hambalyo si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa tiimka iyo macallinkooda iyo runtii alla intii ka shaqaysay iyo xiriirka iyo cid kasta oo runtii gacan ka geysatay inay dhalinyaradaasi soo aroorintoodii hore soo tababaridoodii soo safrintoodii ilaa yani dhiirigelintoodii cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta kusoo dhigaan runtii oo mahadcelinaynaa aniga habeen dhaweyd waan kulanay dhalinyarada iyo macallimiintooda waxaan ku yidhi haddaad soo guulaysataan abaalmarin weyn aad leedihin marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo abaalmarintii waa naga diyaar waxaa kaloo u sheegayaa ta soo socoto ee Algeria lagu qabanayo
taas hadday soo guulaystaan ayadoo abaalmarinba lama dhihi karo magac kale loo bixinaya waxaas magac kale loo bixinaya runtii ciyaarta in lagu guulaystaay markii dhinaca laga fiiriyo waa ramsi waxaa laga yaabaa inaynaan lacaga badan ka helayn inaan xoolo ku helayn waxbaan ku helayn laakiin waxaan ku helaynaa wax muhiim ah waxaan ku helaynaa in calankeenu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelano waxaan ku helaynaa inaan magac yeelano aan ku helaynaa sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guulaysto ayay itusinaysaa aniga waxa dhacay micno ka weynay leedahay waxay tusinaysaa ummad dhimatay oo soo noolaatay qofku hadduu dhinto sooma dhinto laakiin aniga hadda waxay tusinaysaa inaan soo noolaanay oo aan dhimashadii ka soo noqonnay oo aan soconno ayay tusinaysaa waxaa bilowday xilligii guulaha waxaa dhammaaday xilligii guuldarrooyinka iyo jabka ayaa soo dhammaaday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay xaaladda amniga wariyayna Saada Sayid ayaa idinka waramaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo ku qaabilay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage oo safar shaqo u jooga Baydhabo kulanka madaxweyne Laftagareen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka waxaa looga hadlay xoojinta howlgalka ka socda gobolada dalka hay'adaha maareynta musiibooyinka qaranka ayaa shirka furtay magaalada Muqdisho wariyayna Maxamed Ibraahim ayaa mar kale idin faafahinaya hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa magaalada Muqdisho ka daafurtay shirka wada tashiga arrimaha barakacayaasha oo ay ka qayb galeen hay'adaha maamul goboleedyada hay'adda qaramada midoobay u xil saaran qaxootiga ee UNHCR iyo hay'adda IOM agaasimaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka hadlay furitaanka shirka sodma ama hay'adda maareynta musiibooyinka runtii waxaan ay xiriir wanaagsan oo wada shaqeynaa aan wada leenahay hay'adaha kalentooda annaga nagu sidii wasaaradaha oo runtii gobolada oo marka arrimahan oo runtii soo noqday oo runtii UNHCR iyo IOM-na ay runtii aad nooga caawinayso waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano waxaa arkaysaa labadoo waabadoo meel laga dhisay oo markaasi dadkii ay marka magaalooyinkiina way xumeynayaan dadkiina si loogu kaalmeeyo markaasi ma dhacayso marka waxaan rabnaa runtii annaga waxay ayna saacidaysaa wada shaqaynteena oo aada u xoogan oo aada u fiican runtii gobolada iyo federaalka inaan runtii annagoo kaalmaysanayno IOM iyo UNHCR inaan arrintaan runtii wax ka qabanno maantana waxaan ka codsanaynaa runtii inaad tiimka uu ta isqaybiyo si fiican dood fiicanna laga yeesho laakiin aan wax isaga ogaano waxyaabihii nagula caawin lahaay oo dhan iyo dadkan laftikooda in dee mataqaana loo yeelo mustaqbal dheer ayay arrintaani hortaagan tahay waa dareemi kartiino magaalooyinka laftikooda dhexdoodan waxaa laga sameeyey kaamam yaryar laga sameeyey wixii marka waxay nooga ekaadeen runtii haddaan si soomaalinimo u hadalno qaab ku shaqaysi camal u ekaadeen arrintaasna arrin runtii oo annagu aan aqbali karna maahan marka annagoo ka faa'iidaysanayno runtii inay garabna ka helayno hay-adihii kalentooda diyaar u ah runtii inay hadda naga caawiyaan arrintaas inaan annagu hormood u noqono insha allah wax allaala waxay nooga baahan tahana arrintaa qabano annaguna runtii ka hay-ad ahaan ama hay-adda maalinta musiibooyinka runtii diyaar waxaan u nahay inaan arrintaasi annagoo kaashanayno runtii wasiirada oo nala olgada ah oo shaqadu nagala dhexayso inaan arrintaasi wax fiican ka qabano marka inay dareemaan waaye dadkii annaga arrintaan ugu caawinayay inay madaxweyne Deni ayaa ballanqaad u sameeyay ciyaartoyda xulka qaranka ee 17 jirada wariyayna Saada Sayid ayaa mar kale idin faafahinaysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka qayb galayay kulan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada iyo haweenka ururka ka ayaa sheegay inay martiqaad u sameyn doonaan xulka qaranka ee 17 jirada Soomaaliyeed oo ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha Afrika
wuxuu madaxweyne Dani dhalinyarada ku dhaqan Puntland uga baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarinta dalka iyo ka shaqeynta nabadda. haddii dhalinyarada fursad la siiyo oo si sax ah ay hawl u galaan waxay awood u leeyihiin inay sharafta iyo karaamada iyo mustaqbalka Soomaaliya kor u qaadaan. waxaa daliil u ah maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican maysan ka tagin soo koobkii ma soo qaadin. waxaan halka uga dhawaaqayaa magac dawladeed ku hadli maayo ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyaradii 17 jirada ah ee koobka qaaday. waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland. ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo uu ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ay leedahay. mas'uuliyadda ay kharash ku baxay oo dhanna ururka ka baa qaadaya arrintaas loo diyaargaroobay. waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan. fursadda maanta aan haysano waa fursad qaali ah. waa fursad muddo badan aan dhowreynay. waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray. aniga waxaa ballan iga ah arrinta dimuqraadiyadda iyo ururka ka haba waqtiga inta badan inaan u geliyo. maxaa yeelay waxaan arkaa dhaxalkii ubadka iyo mustaqbalkaan u jeedaa. ninka wax kale ka shaqeyn jiray waxaan u baahannahay inuu fahmo ururka ka wuxuu doonayo. ururka ka dan gaara ma rabo, wuxuu rabaa dan caana iyo talo la wadaago rabaa. danta caamka iyo talada la rabo in la wadaago waxaan oran karaa qofka diidan uusan fahamsanayn kaliya annaga waxaana laga rabaa inaan fahamsiino. hadduu shaki jiro shakiga waa ka saarayna. waxaase rabaa inaan dhalinyarada u sheego mar walba waxaa nasiib darro ah ninka xataa fahamsanoo raba inuu wax khaldo cidda wax ku khaldaayo dhalinyaro wey. marka dhalinyaro way maanta horta jaanisa haysataan gabdhaha iyo dhalinyarada. waxaan rajaynayaa intii bele kale caadifadooda ka faa'iidaysan lahayd xubnaha ururka ka inay waqti badan geliyaan dhalinyarada sidii u jehayn lahaayeen. weli waxaad daawanaysaan war wixii gudaha daafaha caalamkii naga soo gaaray haatanna akhbaaraadka dibadda. ruushka ayaa duqeyn cusub ka geystay caasimadda Ukraine. qaraxyo gaaraya ugu yaraan 5 ayaa laga maqlayay caasimadda Ukraine ee Kiev kuwaas oo sababay khasaare kala duwan. la-taliyaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak ayaa qaraxyadaasi ku eedeeyay inay ka dambeeyeen diyaaradahan duuliyaha wadin ee nooca Kamsaka drones isla markaana u adeegsanayay Ruushka. duqa magaalada Kiev Italy ayaa sheegay in dhismooyin ku yaala bartamaha magaalada qaraxyada ay burburiyeen. toddobaad ka hor ayay ahayd markii caasimadda Ukraine uu Ruushka ku garaacay gantaalo taasoo qayb ka ahayd weerar kala duwan oo lagu qaaday deegaano ku yaala Ukraine oo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof. Italy waxa uu intaa ku daray in qaraxyo laga maqlayay degmada Shevchenkovsky halkaas oo dhowr jeer la duqeeyay. toddobaad la soo dhaafay la-taliyaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak ayaa sheegay in Ukraine sida ugu dhaqsiyaha badan ay u baahan tahay qalabka lidka diyaaradaha. iyo dawladda Turkiga iyo Greega ayaa isku eedeeyay tacadiil loo geystay dad tahriibiyaal ah. saraakiisha Turkiga ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid dalka Greega oo ku saabsan in dalka Turkiga uu si qasab ah ugu diray dalka Greega ilaa 92 tahriibi oo qaqaawan isla markaana ay ka muuqdeen dhaawacyo jidheed. hase ahaatee mas'uuliyiinta Turkiga ayaa warkaasi ku tilmaamay inuu yahay been abuur iyagoo ku eedeeyay dalka Greega inuu si xun ula dhaqmay muhaajiriinta. agaasimaha isgaarsiinta ee xafiiska madaxweynaha Turkiga Fahrettin Alton ayaa sheegay in wasiirka socdaalka ee Greega notice uu ku faafiyay bartiisa Twitter-ka war been abuur ah isagoo isticmaalaya muuqaalka muhaajiriinta qaqaawan kadibna ku eedeeyay dalka Turkiga. Fahrettin Altan ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal ku qoran Turkish, English iyo Greek isagoo sheegay in qoraalkaasi looga dan lahaa in dalkiisa la tuhmo. taas beddelkeeda wuxuu Athens ugu baaqay in ay ka waantowdo sida xun ay ula dhaqanto qaxootiga. qodobkaasi ayaa gebi ahaan ugu dambeeyay warkii aad ka daawanayseen Jubba TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. warkaan iyo warka xiga intaan ku kulmi doono mac salaamo.